baabuurta qaraxyada magaalada la soo geliyo dad baa soo geliyo shabaab ma aha nin indhala oo iska socdo ma dadkaas indhala oo iska socdo oo meel isaga dhufanayo ma dad baa caawiyo facilitation ka u sameeyo dadkaas caawiyo u shaqeeyo ka mid yahay waxyaabo waaweyn dalkan uu ka geystay waxa saanadu ku gabanayay qaarkoodna anaga waa ka hortageynay qaarkoodna waxaan la suganaynay waqti lagu xisaabtami karo waqtiga lagu xisaabtami karo maanta jooga oo san xildhibaan ahayd waxa ii sheegtaa waxa waaweyn iyo wada shaqeynta heerka gaartay shaqaalanimada heerka gaarsan aad ku eedeynaysid anaga ma hayno sarunteeda iyo xaqiiqadeeda dadii ma hayn kartid adiga ii sheegay waa maxay kiisaskaas dadka Soomaaliyeed la wadaag waa badan yihiin laakiin waxaan ku sheegayaa mid qof kamid ah hadda uu nool yahay oo joogo caafimaad qabo ra'iisul wasaarayaashii dalka Soomaaliya mid kamid ah inuu dilo isku dayay magacyada al-shabaab ay isticmaalayaan waxaan aniga xogta markaan helay ra'iisul wasaaraha saan wacay ma salaad iyo qof la socdo ma ku imaanayaan ha qaabili bankuur farqiga u dhaxeeya 25 daqiiqo ahayd 25 daqiiqo oo aniga aan soo dhaxgalay baan ku noolaaday waa kee ra'iisul wasaaraha mar hore magaciisa inaan sheegay laakiin madaxda qaranku ka mid noqday hay'adda joogta xilligaad xogtan ogaatay hay'addan joogay mar waxaa jirtay labada aqal ee baarlamaanka iskool booliisiya shir loogu qabanayo taariikh oo madaxweynuhu uu furiyay taariikhda hadda exactly waa la raadin karaa laakiin labada aqal loogu shiray loogu qabanayo waxa loogu qabanayo iskool booliisiya wuxuu qorsheeyay oo al-shabaab kala shaqeeyay oo mahad karatay oo ninku u shaqeeyo ah uu kala shaqeeyay meeshaas in laba baabuur la soo geliyo oo dadkii meesha madaxda qaranka ah timid qarax loogu soo geliyo way nool yihiin tafaasiisha ma siinin laakiin gudoomiye Cabdi Xaashi telefoon baan u diray waxaan ku yiri barrito shirkaas hal la baajiyo sabab amni darteed